sida ay u sheegeen ila ku dhow madaxtooyada waxaa socota qabanqaabadii ugu dambeysay ee shirka guddiga amniga qaranka oo uu gudoomiyo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo. shirka waxaa markiisii hore uu qorsho ahaa inuu gelinka hore furmo, laakiin dib u dhici shalay ku yimid la taliyaha amniga qaranka ahna taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sodonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa keentay in ilaa gelinka dambe shirka dib loogu dhigo. shirkaasi madaxweynuhu wuxuu iclaamiyay 7 bishii September, waxaa ka sii horeysay in ra'iisul wasaaruhu uu ka dalbaday taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir in uu warbixin ka keeno kiiska gabadha maqan ee marna la yiri waa la dilay ee Ikraan Tahliil Faarax. hayeeshee Fahad Yaasiin oo ka jawaabayay codsiga ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu warbixinta siin doono guddiga amniga qaranka, taasoo buddig u ahayd khilaafka hadda u dhaxeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. shirka guddiga amniga qaranka oo ay xubno ka yihiin wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka, taliyayaasha ciidan iyo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ayaan la ogeyn cidda ka qaybgeli doonta. ra'iisul wasaaruhu dabcan sida muuqata khilaafka kala dhaxeeya madaxweynaha dartii lama fili doono inuu shirkaasi tago. waxaase la filayaa ama laga warsugayaa taliyayaasha iyo wasiirada shirkaasi ka qaybgeli doona iyo xogta iyo macluumaadka shirkaasi lagu bixin doono. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir shalay ayuu ka baaqday Muqdisho imaanshiyihiisa kadib markii diyaaradda Turkish Airlines ee Djibouti markii ay fariisatay xamar usoo dhaqaaqi lahayd ay dib ugu noqotay Istanbul. warar kala duwanna waxay leeyihiin oo soo baxaya in laga yaabo inuu gelinka dambe Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu falayd gaara ka soo qaato Istanbul yimaadana magaalada Muqdisho. diyaaradii shalay lagu celiyay Djibouti ee ku laabatay Istanbul lasaaka falayd toos ah oo Istanbul to Muqdisho ah ayay timid. rakaabkii saarnaa shalay ku xayirnaa diyaaraddaasina saaka ayay kawtaray timid magaalada Muqdisho oo rakaabkii halkan ay uga soo degeen iyadoo rakaab kalena ka qaaday gegida diyaaradaha caalamiga ah ee aadan cabdulla